bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamka waxaa ugu dooroon qaraxyo laga maqlay xarunta xalane ee reer galbeedka intooda badan ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho waliba amniga ayaa aad loo adkeeyaa waxaa ku shaqeeya taliska AMISOM qaramada midoobay xubnaha safaaradaha reer galbeedka oo Mareykanka midooda ay ka mid tahay war ka soo baxay ururka al-shabaab iyo sida ay wax u dhaceen ayaan idin haynaa dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya heshiis ayay ku kala saxiixdeen Addis Ababa safarka ra'iisul wasaare qeyr arrimaha doorashada 2020 ayuu kala hadlay dhigiisa Abiy Ahmed Cali qorshaha filla Soomaaliya ee Addis Ababa ay hadda u joogto iyo nuxurka heshiiska la galay diyaaradihii caalamiga ah dhammaantood waa istaageen oo habeennimadii xalay amarkii ayaa ku dhacay wax diyaarad ah oo iman doona muddo 2 toddobaad ah ma jiri doonaan sariiqda loo dhigay dawladda federaalka Soomaaliya Jubbaland ciidan xoog leh ay soo bandhigtay dhaqdhaqaaqyada Kismaayo ka socday iyo Axmed Madoobe oo diyaar garow hadda duulaan sameynaya aroosyada waxaa laga mamnuucay muddo magaalada Jowhar iyo deegaanada kale ee Hirshabeelle xaalka dad badan ayuu ku xun yahay oo maamulkaas deegaanada xukumo ku dhaqan miisaaniyada 2020 oo lacag badan ah ayaana Hirshabeelle sidoo kale ay meel mariyeen baarlamaanka Jubbaland dagaal nooc cusub ah ay ku bilaabeen dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar waxa uu magacaabay mas'uul cusub oo taliska ciidamada halka loo magacaabay faahfaahin ayaan idinkaga haynaa qodobka dibaddana waxaa ugu dooroon ku dhawaad 25 milyan ayaa shaqo la'aan ah dunida oo dhan kuwaasi oo la sheegay in cudurka coronavirus-ka awgeed ay saameyn ku yeelatay shaqooyinkii ay hayeen sidaas waxaa shaacisay hay'adda shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyo ILO u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaad nagala socotaan shabakada wararka maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha 3 ee Maarso sanada 2020 waana maalinimo Khamiisa warkii oo dhan ogeysiis shirkadda Ifio Trading and Public Service waxay ogeysiinaysaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay bilaabatay qabashada maalgelinta qaybteedii koowaad waxa la gaaray waqtigii aad dhaqaalahaada aad ku heli lahayd faa'iido wanaagsan adiga oo aanan ka walwalaynin aaminaadda shirkaddan qabashada maalgelinta oo bilaabatay 16 Maarch waxay ku egtahay 27 Maarso fadlan ka faa'iideysa haddii aad doonaysid inaad samaysato maalgelin oo u dhiiba dad la hubo amaanada ay ku haynayaan wixii faahfaahina kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda adiga oo toos u wici kara ama WhatsApp ahaan u heli kara aan ku bilowno duulimaadiyadii caalamiga ah ayaa waxay gabi ahaanba istaageen kadib markii la sheegay in ay saameyn ku yeelatay amarkii maalintii Isniinta toddobaadkan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ay ku rogtay diyaaradaha caalamiga ah ee iyagu safarada dibadda sameyn jiray diyaaradahaas ayaa kuwa iman jiray iyo kuwa ka bixi jiray gudaha Soomaaliyaba ay amarkaasi culays ku tahay xalay 6 saac wixii ka dambeeyay amarkaas waa uu dhaqan galay waxaana jirin diyaarado dalka dibaddiisa ka iman doona oo magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya iman doona inkastoo maamul goboleedyada aan la ogeyn go'aankan dawladda federaalka in isbedel dhankooda uu ka iman doono in kale haddana wasiir Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa waxa uu Isniintii toddobaadkan shaaciyay sida warkiisana laga dhadhansanayay in uu saameynayo go'aanka amarka ay soo saareen dhammaan garoomada diyaaradeed ee dalka xitaa qaadkii iman jiray ayaa go'i doona oo wax diyaarad ah oo qaad lagu keeni doono ma jirto maadaama Kenya ay ka mid tahay diyaaradaha ka imaanaya kuwa caalamiga ah dhinaca kale qaraxyo xoog leh ayaa habeennimadii xalay laga maqlay xarunta xalane ee amnigeeda aadka loo adkeeyo agagaarka garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale dhowr madfac ay ku dhaceen goobjoogayaal waxay sheegeen in hoobiyaashaas ay ahaayeen kuwa 4 tiradooda lagu qiyaasay waxaana war ka soo baxay ururka al-shabaab saacado ka hor ay ku sheegteen mas'uuliyadda weerarkaas waxaana warbaahinta taageerta la sheegay laguna daabacay
in madaafiic lagu weeraray xerada xalane. hoobiyaashaas lagu tuuray xarunta xalane ayaa al-shabaab waxay sheegeen in loo adeegsaday qoriga loo yaqaano hoobiyaha, inkastoo aanay shabaabka qudhooda sheegin wax khasaare ah oo ay ogyihiin. ilaa 5 madfac ayayna tiro ahaan ku sheegeen shabaabka. ma jiraan wax wara oo kasoo baxay dhanka dowladda laamiheeda amniga taliska ciidamada amisom oo ay kaga waramayaan madaafiicda lagu garaacay halkaasi. ku darso oo xerada xalane amnigeeda ayaa aada loo adkeeya, waxaa ku shaqeeya inta badan safaaradaha reer galbeedka oo midda Mareykanka ay ku jirto. sidoo kale waxay xarunta xalane ay fadhiisinta ugu weyn u tahay taliska ciidamada amisom. waa meel amnigeeda aad loo xakameeyo dhaqdhaqaaqyada marka la eego, iyadoona bara control oo tiro badan la mariyo qofka xerada xalane galaya. cisbitaal weyn ayaana halkaas ku dhex yaala oo dadka xaaladooda waxba looga qaban waayo cisbitaalada kale ee magaalada muqdisho lagu daweeyo. maahan markii ugu horeysay oo shabaabku ay weerar madaafiic loo adeegsaday ku weeraraan gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho. qaybaha dhexe ayaana soo gaarnay warbaahinta wararka maanta. taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Genaraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa waxa uu u magacaabay Cabdi Ibraahim Shaamow oo loo yaqaano Cabdi Dheere gaashaanle sarana ah inuu noqdo taliyaha booliiska ee maamulka Koonfur Galbeed. warqad ka soo baxday taliya Xijaar ayaa lagu magacaabay Cabdi Dheere oo loo arkay nin ka soo bixi kara hawshaas. taliyaha cusub ee booliiska Koonfur Galbeed Cabdi Dheere ayaa xukumi doona 3 gobol ee Shabeellaha Hoose, Baay iyo Bakool, waxaana dadka yaqaana ay ku tilmaameen nin arrimaha ciidanka wax badan kusoo jiray, gaar ahaan qaybta booliiska. waxaa hore xilkan usoo hayay Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidamada asluubta ee xilligan dalka, waxaana madaxweynaha Koonfur Galbeed uu rajo ka qabaa in waxyaabo badan ay kasoo bixi doonaan isbedel marka la eego booliiska iyo hanaanka nabadgelyada deegaanada loo magacaabay gaashaanle sare Cabdi Shaamow Cabdi Dheere. dhinaca kale, shir aan caadi ahayn ayaa waxaa golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle ay ku yeesheen magaalada Jowhar ay ku meelmariyeen miisaaniyadda 2020 ee maamulkaasi. wasaaradda maaliyadda ayaa soo diyaarisay miisaaniyaddan. lacag ahaan ayaa aada uga badan intii ay hore u ahayd 14,10,984 dollar ayaana miisaaniyadda 2020 Hirshabelle ay tahay. golaha wasiirada Hirshabelle ayaa si qoto dheer waxa ay kaga hadleen cudurka khatarta badan ee coronaviruska oo hadda meelo badan oo dunida aafeeyay. kiiskii ugu horeeyay ee Soomaaliyana laga helay isniintii isbuucan magaalada Muqdisho, qof garoonka diyaaradaha kasoo degay. inkastoo dowladdu ay sheegtay in la xakameeyay cudurkaas in uu faafo, haddana maamulka Hirshabelle iyadoo laga baaqsanayo cudurkaasi saameyntiisa waxa ay xirtay goobaha waxbarashada, islamarkaana aroosyada ayaa in muddo ah la sheegay xafladaha la isugu yimaado in la mamnuucay. wasiirka maamulka Hirshabelle u qaabilsan dhinaca warfaafinta Maxamed Cabdiraxmaan ayaana sheegay sidaas. wasaaradahaas waxa uu madaxweynuhu amray in ay si adag uga shaqeeyaan dardargelinta iyo wacyigelinta bulshada si cudurkan halista ah loo yareeyo dhibaatada uu keeni karo ama guud ahaanba la isaga ilaaliyo. si cudurkaas looga hortago, golaha wasiirada waxay go'aan ku gaareen in dhammaan la fasaxo goobaha waxbarashada oo ay ka mid yihiin iskuullada, jaamacadaha iyo dugsiyada quraanka muddo 2 toddobaad ah. sidoo kaleete intii uu kulanku socday waxaa lagu soo qaaday joojinta kulamada ay yeeshaan bulshada sida aroosyada iyo xafladaha shirarka, kaasoo ay ka dhalan karto haddii laga helo cudurka in dhaqso uu ku faafo. waa tahay kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan, wasiirka warfaafinta maamulka Hirshabelle. shabakada wararka maanta ayaad weli la socotaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu dhigiisa dalka Itoobiya kala hadlay xoojinta cilaaqaadka labada wadan. Abiy Ahmed Cali ayaa wasiirka koobaad ee Soomaaliya Xasan Kheyre waxa uu soo tusay mashaariicyo horumarineed oo xukuumadda Addis Ababa ay ka wado, sida uu sheegay caasimada dalkaasi. wafdiga ra-iisul wasaare Kheyre oo shalay Arbacadii gaaray magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy in ay Soomaaliya ka caawin doonaan arrimo badan
marka la eego dalalka dariska oo ay ka mid yihiin caabuqa corona iyo sida la isaga kaashan lahaa. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Itoobiya oo ah asalkiisu Soomaali ayaa waxa uu sheegay in labada dal ay waxyaabo badan iska taageeri doonaan, rajana ay ka qabaan in hormuud ay u noqdaan wadamada Geeska Afrika dhaca. Axmed Shide wasiirka maaliyadda Itoobiya ayaa ku dheeraaday xiriirka labada wadan iyo in gacmaha la isqabsado oo labada ra'iisul wasaare ay ku heshiiyeen. Itoobiya magaalada Addis Ababa joogay ra'iisul wasaare Khayre wuxuuna la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya mudane Dr. Abiy Ahmed. labada ra'iisul wasaare waxay ka sheekaysteen guud ahaan iskaashiga labada wadan u dhaxeeya. Soomaaliya iyo Itoobiya waa dal daris ah, jaar ah, shacab wada jira, aad u wada wadaaga oo taariikh badan oo soo dhaxeeyay, mustaqbal weyn oo wax wada qabsina u dhaxeeyaan. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Abiyna booqashadii Muqdisho markuu kadib xiriirka labada wadan aad iyo aad baa loo sii xoojiyay, kor baa loo qaaday, si istaraatiijika ayaa loo wada shaqeynaya, gaar ahaan ammaanka guud ahaan Geeska Afrika iyo Soomaaliyaba sidii iskaashiga loo sii xoojin lahaa bay ka wada tashadeen, iyo arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta iskaashiga sidii loo xoojin lahaa ay ka wada tashadeen. ra'iisul wasaaruhuna wuxuu soo tusay mashaariic kala duwan dal ahaan aan wadno, gaar ahaan magaalada Addis Ababa laga wado iyo soo tusay run ahaantii labada dhinac sidii iskaashiga loo xoojin lahaa ayay ka wada hadleen, iyo ammaanka iyo nabadgelyada iskaashiga gobolka Geeska Afrika oo dhanba. taasi waxaa sii dheer cudurkan dhawaan dilaacay oo adduunka dhibaato ku ah, dadaalka Itoobiya laga wado iyo dalka Soomaaliya wado fikradiis dhaafsadeen in cudurkan la dagaalankiisa si wada jira Geeska Afrika oo dhan si iskaashi wada buuxa sidii looga sii shaqeyn lahaa fikradiis way dirsadeen. taasna la sii xoojin doono dhammaan madaxweynayaasha ama hogaamiyaasha dalka Geeska Afrika oo dhan la gaarsiin doono. waa mahadsantihiin. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in arrimaha doorashada 2020-2021 uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya, inkastoo aan warbaahinta lala wadaagin arrimahaas iyo wixii la iska yiri. waa tahay daawadayaal, gabagabada ayaan soo gaarnay shabakada wararka maanta. xildhibaanada golaha wakiilada Jubbaland ayaa waxay bilaabeen kulamo ay ku sheegeen inay kaga hadlayaan baalmaridda ku dhaqanka dastuurka kumeel gaarka ee ay dalka ka caadaysatay xukuumadda federaalka Soomaaliya, taasoo gebi ahaanba meesha ka saartay xeerarkii uga deganaa xeerarka kala dhaxeeyay wada shaqaynta dowlad goboleedyada. waxa ay maalintii koobaad kulanka ay ku dhaliileen habdhaqanka xukuumadda dhexe oo ay ku tilmaameen inay caadaysatay oo ay burburin ku sameynayso dhammaan shuruucda kala dhaxaysay dowlad goboleedyada dalka. baarlamaanka Jubbaland ayaa gudoomiyahooda Cabdi Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in tafaasiil dheeraada ay kaga bixiyeen xildhibaanada Jubbaland ku tumashada dowladda federaalka ee shuruucda dalka ay ku sameysay. intaas kadib waxaa ka hadlay xildhibaanada qaarkood, waxaana ay shirkaas ka soo gudbiyeen habdhaqanka aan muhiimka ahayn oo ay dowladdu ku inqilaabayso dastuurka dalka sida ay warka u dhigeen. dhinaca kale, ciidamo cusub ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Kismaayo, iyadoona dowlad goboleedka Jubbaland ay sheegeen in ciidamadan booliisku ay yihiin kuwo amniga loogu talagalay in deegaanada Jubbaland ay sugaan. tababarka ayaa kadib ciidamada dhoolatus waxay kusoo sameeyeen wadooyinka magaalada Kismaayo. gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed oo ah taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Jubbada Hoose ahna taliyaha booliiska ee Jubbaland ayaa waxa uu warbaahinta mar uu la hadlay sharaxaad ka bixiyay tababarka ay qaateen ciidankan, isagoo sheegay inay ku rajo weyn yihiin sugidda ammaanka deegaanada loo diro askartani. Axmed Madoobe ayaa la sheegay in hadda uu u diyaar garoobayo dagaal uu dowladda federaalka deegaanada ay ka qabsatay uu ku qabsan doono, sida ay saraakiisha ka dhadhow agtiisa ay shaaciyeen. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa warbaahinta wararka maanta. bal markana aan fiirino qodobka dibadda. hay-adda shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa ku dhawaaqday in 25 milyan oo qof ay shaqo la-aan yihiin caabuqa corona tan iyo markii uu bilaabmay. warbixintan ayaa lagu sheegay in 24 milyan iyo 700 oo kun oo shaqaale ah ay hadda yihiin kuwa baagamowdo ah. waxa ay ka saramareen 188 milyan shaqo la-aanta dadkii ahaa
xaddi ahaan marka la eego 2019 ayaa la yiri. gudaana daawadayaal intaaseen kusoo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen shabakada wararka maanta. Inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono, nabadgelyo.